السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دمان أصحابتا meel walba aad joogtaan. Halkan waxaan uga hadlaynaa dhowr arrimood oo dhanka siyaasadda ka mid ah. Beriyahan waxaa baraha bulshada qabsaday inay dad aflagaadeynaya madaxda qaranka. Way sugayaan dadka ayaga waxay yihiin iyo wax kalena waa la ogi. Dowladdan hadda jirto mar haddii qofku uu wanaagiisa bato waxa badanayo mucaaradkiisa. Dowladda ka horreeyay waa la garanayaa waxay soo qabteen waxay galeen waxay gudeen waa la garanayaa. Soomaaliya maanta dhowr wax ay ka digalaada kuwaas ayaga ayaa faahfaahin ka bixin doona. Dowladdii ka horreysay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud bay ahayd waxaa ka soo horeysay Sheekh Shariif. Adiga waa la garan karaa waxay soo dalka u qabteen iyo waxay ahaayeen. Markii waxaan ka hadlaynaa dadka baraha bulshada isticmaalo. Dadka baraha bulshada isticmaalo intooda badan meesha u badan wala mucaarad waay. Qofka hadduu mucaarad yahayna lama rabo inuu wuxuu rabo isaga hadlo. Mucaarad waad noqon kartaa, muxaafad waad noqon kartaa, cidda rabtaa taageeri kartaa, cidda rabtaa ka soo horjeesan kartaa. Waa mid adiga ku qaas. Dadka markay madaxda qaranka ku tilmaamay waxay ahayn qofka bini'aadanka wuxuu qabto waa lama xaqiro. Laakiin haddii wuxuu qabtay aad xaqirtid dee markaas adiga naftaada been u sheegay. Farmaajo iyo Kheyre waxay ahayd dad wada shaqeeyo, dad isku siyaasad, dad isku mowqif ah. Way jiri kartaa in la kala aragti doonaado. Waayo hadda xilliga la maray waa xilli kala guura nin walba baawurkiisa ayuu banaanka la imaanayaa. Shir baa ka dhacay Dhuusamareeb. Shirkaas waxaa looga hadlayay arrimooyinka doorashooyinka. Shirkaas labo kala aragti duwan ayaa mid walba fikirkiisa ka dhiibtay oo ahaa in la qabto doorasho dadban halka dowladda federaalka ay ayadana mowqifkeedu ahaa in la qabto doorasho cod iyo qof ah. Laakiin ma aysan dhicin oo wixii la sugayo meesha kama soo bixin. Maasha Allah. Laakiin waxa lagu kala tagay waji wanaag iyo niyadsan. Shirkaas waxaa daahfuray madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda shanta maamul goboleed. Shirkan madaxweynaha khudbadooyin aad u muhiimsan buu ka jeediyay. Waxyaalo ka hadlay waxaa ka mid ahayd in loo tiro shacabka sidii xaqooda loo soo dhicin lahaa, sidii wax loogu qaban lahaa. Dalka hadda wuxuu ku jiraa xaalad kala guur ah. Nin walba markay wuxuu haysto siyaasaddiisa ayuu ku meel mari. Dadkan dhahay Farmaajo wuxuu dalka u horseedayaa qalalaase iyo dagaal iyo waxaan loo jeedin. Horta Farmaajo ma ahan madaxweynihii ugu horreeyay dalka madax baa soo martay. Intay xilkaas nin walba si sharaf leh buu ku dhamaystay. Farmaajo way dhici kartaa qofka in nasiibkiisa haddana mar labaad u soo celiyo. Way dhici kartaa inuu soo noqdo, way dhici kartaa inuu soo noqon. Laakiin nin walba intuu xilka haysto kursigaas ku fadhiyo wuxuu mudayaa sharaf iyo ammaan iyo inuu wuxuu qabtay laga run sheego. Dowladda hadda jirto wax badan way qabatay waxaana ma qaban. Muddo 4 sano ah dalka madaxweyne waxa kuma qaban karo. Waayo 4 sano ognaa waa muddo aad u yar waaye. Markay qof walba wuxuu rabaa in wax la qabto. See wax lagu qaban dalka wuxuu leeyahay mucaarad buu leeyahay muxaafad buu leeyahay. Laakiin markii mucaarad iyo muxaafad leeyahay waxaa la rabaa in la isku duuban yahay. Hal meel looga soo jeesto midnimada. Laakiin hadduu nin walba oo hortiisa uu ka fudkudiyo wax maxagaagay ma leh. Waxaan u sheegay dadkan baraha bulshada isticmaala ee mucaaradka ah wanaagii runta rabtaan waxaan sheego. Farmaajo wax badan buu qabtay. Lama xaqiri karo. Dowladdii ka horreeyay nin walba haddii la fashilo waa la is garanayaa.
dadka laakiin baraha bulshada isticmaalo ee mucaaradka iyo qabiilka lafaha ka galay oo ilaahay intaad ka cabsataan oo maxaa la ii sheeg madaxda qaranka ka xishooda wax xishoonaya ma tihiin qof baa iska soo gelay farmaajo waa maxaa la ii sheeg waa mageyste waa tuug waa san waa waxaas idinka layama darsan ninkan faraha ka qaada dowladdan si sharaf leh ay dalka usoo hogaamisay si sharaf lehna way ku hogaamin doontaa insha allah idinka waxaa idinkaga baahaya inaad dowladda afaareeda ka baxdaan dalka idinka uma talisan dad baa u taliyo maslaxadiisa idinka kaba warantaan laakiin intaad tv-ga soo fariistaan oo baraha bulshada soo gashaan waxaa rabtaan hasaga sheegina waxaa kaloo in sheegaya inaad madaxdiina aad mar walbo xitaa haddaad mucaartiin waxaa linka rabaa madaxda waxay sharaf iyo ciise bay inka mudan tahay inaad xushmaysaan inaad maxaa la yeeshaa wanaagooda wax ka sheegtaan laakiin mucaarad baan waxaa rabaa iska sheegi codod beena intaan soo qaataan baraha bulshada soo dhigaan dhihi wakaa madaxweyne saas buu sameyn war waxaas wax macquula maahan midda kale waxaas adiga aad samaynaysaa sharaftaada ku bees haddii aad rabtid in lagu sharfo horta adi sharaftaada iyo ciisadaada dhowr laakiin waxaan rabaan iska sameyn waxaan rabaan ku dhaqmi waxaas wax macquula maaha laakiin haddii aad rabtid in lagu sharfo adiga horta sharaftaada dhowr dad waaweyn waxaad arkaysaa rag waaweyn iyo maamo waaweyn oo faraha bulshada inta soo galo warniyo qabiil sidiisaba qabriga kula gelmaayo adduunkan baad uga tegi marka waxaa lagaaga baahan yahay inaad maxaa la yeeshay intaad nooshahay waxyaalaha maxaa la yeeshay aad ku qatalmi kartaa iska daysid waxaa kaloo in sheegayaa horta xilli waxaa la kala guur beriyahan waxaa soo baxayso madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isku dhacsan hadda weli anaga maana arag meel ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay isugu dhacsan yihiin laakiin way dhici kartaa inay xoogaa kala aragti siyaasad ay jiri karto dowladdan sida inta ugu badan waxaa laleeyahay muddo kordhin bay rabtaa way dhici kartaa dowladda inay muddo kordhin samaysato way dhici kartaa inay doorashada waqti kordha laakiin waqtigan hadda la joogo horta doorasho lagu qaban maayo waqtiga aad buu u yaryahay muddo 7 bilood camal ah baa waqtigii dowladda ka dhiman xilligaasna doorasho lagu qaban maayo ninka la yiraahdo farmaajo waa macquul inuu sameeyo muddo kordhin sida ay dadku u hadal hayaan shirka dhowsmare waad maqlaysay inaan lagu heshiin doorasho dad badan lagu heshiin doorasho cod uun soo dhaweyn karto cod iyo qof in laga hadlay laakiin ma maleynayo dowladda hadda mowqifkeedu waxaa weeye inay qabato doorasho cod iyo qof ah taas ayayna shacabka wala rabaan annagana taas ayaa rabnaa waxaan lagu hayaa doorasho dadban iyo doorasho waxaas waxaa kama jiraan waxaas waa iska war iska sheega waaye insha allah waxaan rajeynayaa in dalkan ka dhacdo doorasho cod iyo qof ah farmaajo waxaa leenahay guul ra-iisul wasaarihiisana waxaa leenahay guul dadka baraha bulshada isticmaalo war ilaahay intaad ka baqdaan ka dhaafa madaxda aad ku sheegayseen nin walba wuxuu leeyahay ceeb iyo daldalo uu leeyahay adigaas waxa sheegaya waxaa ceeb iyo daldalo wala inay maanta wax laga sheego laakiin nimanka intay maxaa la yeeshay baraha bulshada soo fariistaan waxay rabaan isaga dhaqmeen war hadii waa la xishoodka gooyinka aad ilaahay maad ka baqdaan dadka dhibka ka dhaaf madaxdeena ka dambeey ninka maanta raba inuu maxaa la sheeg dalka hogaamiyo waxa rabaa ku dhaqmay taadar say shacabkii dadka ku aamin arrinta isaga dhaqmaysaa saasna kursi lagu heli maayo saasna waxa lagu heli maayo laakiin dadkaas waa looga dad baa dabada ka riixayo wax qofku markuu sariigta ka dhintana wax uu iska sheegi marka reer waxa leenahay isku xishooda baasha meel fiican bay maraysaa nin walba wuxuu qabtay haloo qiro qofkii waxaan qabanaa dadka dad isku mid maaha qofna wax uu qabtay qofna waxa ma qaban laakiin qofka waxaad ogtahay inuu qabtay inaad iska indhasaagtay laba rabo marka waxa loo baahan yahay inaad dalka iyo dadkaada aad wax dhismada aad mar walba ka qayb qaadato laakiin aad baraha bulshada soo fasaxana iska sheeg wax rabaan ku candhuf de waxaas wax macquul ah ma waxaad ii sheegaa mid kale mar walba waxaa laga hadlaa dalka iyo dadkaada yani wuxuu u baahan yahay laakiin mucaarad baa noqon meeshaan soo fariisan madaxda qarankan ku candhuf dowladda waxaas wax soconay maaha waxaa la rabaa inaad wax xaqiiqada ka heshid mucaarad waad noqon kartaa laguma diidan laakiin mucaarad wax walba isaga hadlaya
adeer meesha waxaa ku dhibaysaa sharaftaadii, waxaa la rabaa marka inaad sharaftaada ilaalsatid. Waan ognahay dadka waxaan hadda ka dhaqmay waa dad magaca baraha bulshada ku leh, laakiin waxay rabaan isaga dhaqmay. Marka waxaa idiin sheegayaa asxaabta, dowladda waxay qabatay iyo waxaysan qaban, waxay qabtaa ayaa badan. Marka mar walba waxaa la rabaa inaad dowladdaada garab taagnaatid, inaad shacabkaada garab taagnaatid, waa inaad ka qayb qaadato dib u dhiska dalkaada. Laakiin meeshaan soo fadhiisanay waxaan rabaa niman maxaa la ii sheeg dibadaha jiro carruurtooda iska raaxaysanaya inay ku tuntaan horumarka dalka iyo waxqabadka dadka madaxda ay qabteen. Dee waxaas wax macquul ah maaha, wax loo dulqaadan karana maaha. Markay waxaa laydinka doonayaa in waxaas fiirin oo aad mar walba ka qayb qaadataan horumarka dhulkeena iyo dadkeena iyo maxaa la ii sheeg wanaagga mar walba tusaan. Mar walba meesha dhanka waxaa laga fiiriyaa wanaagga, laakiin haddaad dhanka xumaanta ka fiiriso wax kuu hagaagaya ma jirto. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi.